ku dhawaad 100 ruux oo Itoobiyaan ah ayaa xabsiga loo taxaabay kadib markii lagu eedeeyay in ay hayeen kuwa u tahriibaya dhanka iyo Sacuudi Carabiya. Maamulka gobolka Amxaarada ee waqooyiga Itoobiya ayaa shaaca ka qaaday in ay qabteen 97 qof oo Itoobiyaan ah oo looga shakisan yahay in ay dadka tahriibiyaan. War-saxaafadeed uu soo saaray xafiiska isgaarsiinta degmada Bati ee gobolka Amxaarada ayaa lagu sheegay in 52 rag ah iyo 45 dumar ah ay dhawaan ciidamada ammaanka qabteen, kuwaas oo la sheegay in loo tahriibinayay meel aan la shaacin. Bayaanka ayaa lagu sheegay in shakhsiyaadka oo ay ku jiraan caruur ay da'doodu u dhaxayso 13 ilaa 15 jeer la rumaysan yahay in Sacuudiga ay u socdeen. Waxa ay sidoo kale bayaanka lagu sheegay in ay qorsheynayaan in ay sii daayaan 97 shakhsi kadib markii la siiyo tababar ku saabsan khatarta tahriibka.